ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. لتنهرن غريبا حال غربته، الدهر ينهره بالذل والمحن. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، سورة أحزاب وكجرنا ولي waxaan ugu soo dambeysay qisadii bilowgeedii axzaab iyo sida ilaahay dadka mu'miniinta uu ugu nimceeyey ayagoo la farayo nimcada ilaahay siiyey inay markaa ku shukriyaan ama ay xasuustaan. waxaan noo soo sheegnay, aan soo tilmaamay in raggii isbahaysatada dhammaan ay isugu yimideen, muslimiintiina ay godkii dhufayska markaa qodaayeen, ayagoo xaaladoodu ay sidaa tahay, weliba baahi iyo gaajano ay markaa hayso. dadka muslimiinta in badan buu ilaahay markaa u nimceeyey subxaana wa tacaala. waxaa dhacday marka ayagoo saas ah oo saa laysugu yimid oo muslimiintii laysku soo bahaystay, in haddana yuhuuddii reer bani qurayda ee nebiga la dhex deganayd ee magaalada madiina inay ayagana ballantii ka baxeen. ixraaj kale, waa dhib kale, ayagoo intii bannaanka tabar loo la-yahayoo la dhahaya seen isaga celinaa, ee rasuulku uu la tashanaya raggii saxaabada labadii sacad, ayaa waxaa haddana ballantii ka baxay reer bani qurayda oo weliba magaalada la dhex degan. idan dhabarjabin baa hadhow imaanaysaa in muslimiinta lagu soo sameeyo, horeyna looga yimaado, dhexdana looga yimaado, oo xaggooda hoose ah reer bani qurayda ayaa ballantii markaa ka baxday. warsee camal, warsee waayo xaaladda maya, laakiin ilaahay nasrigiisii guushiisii baa usoo degay muslimiinta. nin ay gaalnimo ku ogaayeen oo tartiib soo islaamaa nebiga u yimid sal alla alayh wasalam. kolkaasuu rasuulkii allow waan soo islaamay, maxaan kuu qabtaa? war nin keligii baa tahee, haddaad kari karto dagaalku waa khadci iyo khiyaanee, isku geegey ayagii baa laysku diray, madaxa laysku geliyey. rasuulka sal alla alay wasalam nin saxaabiya ayuu diray suu u tago oo meesha uu usoo eego sida xaaladdu ay tahay. wuu dhex tegey. mar allaala markuu dhex tegay buu yidhi abaa sufyaan oo dadkii saas u dhex marayaan u jeeday, laakiin rasuulka alla ballan buu isiiyey inaan waxba samaynin. wallaahi waa ii sahlanayd inaan dila buu yidhi, laakiin maanan samayn. qabow badan baa jira, dagaalkii aad iyo aad baa dabayb iyo waxyaabo kale ilaah usoo diray subxaana wa tacaala. xataa nebiga saxaabada uu ku yidhi yaan la bixin, axad bixi kara yuusan jirin caawa, qof kasta meesha uu joogo ha isku nabo. laba nin baa baxday, dabayshii baa qaaday ayagoo dhanba. xaaladaasoo dhan waxay gaaraysaa dadka muslimiinta ah sida markaa ilaahay ugu nimcaynaya subxaana wa tacaala. ninkii saxaabigee la diray wuxuu arkay abaa sufyaan oo yidhi aniga beri waan dhaqaaqaya, ha layla diyaar garoobo. ayagiina sii dibjebiyo baxaya. qabarkii buu rasuulku u keenay sala allahu calayh wasalam. sidaa darteed ayaa axzaab ilaahay dabaylaha iyo malaa'igtaa u soo diray, saasay nasri iyo guul ku heleen. yaa soo haray? waxaa soo haray reer bani qurayda oo ballantii uga baxday. weliba dagaalka noocaas ah ayaa la tilmaamaa inuu ku dhaawacmay sacad, inuu ku dhaawacmay. sidaa darteed ayaa reer bani qurayda markii muslimiinta ay soo noqdeen, rasuulkoo qubaysanayaa la tilmaamaa, ayaa jibriil u yimid. hubkii ma dhigteen? haa. war haddaan anagu malaa'ig nahay ma dhigin hubkii, weli waa haysanaa. dhaqaaqa ee reer bani qurayda, hadda casirka ha lagu tukada buu dhahay rasuulka sal alla alayh wasalam. laa yusalliyanna axad adinka idinkamida yuusan tukanin ilaa qurayda in lagu tukada maahane, hala dhaqaaqo. degdeg baa dadkii lasoo dhaqaaqay, saxaabadii rasuulka sal allahu alayh wasalam. mar allaala markii uu kadib dhacay
way degdegeen way carareen mar allaala markii casirka la gaaray waddaduu ku dhex qabtay qolaa waxay tiri anigu maba tukanayniba nebi moxamed baana yidhi ha tukanina ilaa qoreeda aad gaartaan tukanina meeshaasaan ku tukanaynaa caawana haddaa jidka ku jirno xataa tukan mayno qolana waxay dhaheen war rasuulku saa ulama jeedee waxaa laga wadaa dhaqso untaga ee haddii jidka sayraad nagu haleesho waan tukanaynaa qole way tukadeen qolena ma tukanin rasuulkaa ka daba yimid arrintii bay u sheegeen cidna ma canaananin sal alla alay wasalam labadoodaba inay saxan yihiin ayuu u tilmaamay qoraydaa la tegey mar allaala markii la tegayna sidii laga dhigay waynoo imaan doontaa isla suuradda haddii ilaah idhaahdo waid aqadnaa waxaad xustaa id wakti aqadnaa aan qabanay min annabiyiina nebiyaashii xaggooda aan ka qaadnay miihaaqahum ballantooda wa minka adigana aan kaa qaadnay buu dhahay ilaahay wa min nuuxin iyo nuux wa ibraahiima nebi ibraahim wa muusaa iyo muuse wa ciise bni maryama iyo ciise maryama canugeedii ahaa wa akhadnaa waxaan qaadnay minhum xaggoodan ku qabanay miihaaqan ballantaasoo haliidan adag buu dhahay ilah subxaana wa tacaala ballan haliid ah oo kakan oo xoog leh oo loo baahan yahay karti in looga soo bixiyo hufnaan ayaan idinka qaadnay liyas'ala inuu su'aalo ilaahay assaadiqiina saadiqiintii runsheegayaasha can sidqihim runtooda xaggeeda in la weydiiyo wa acadda wuu diyaariyey ilaahay lilkaafiriina gaaladana cadaab buu u diyaariyey cadaabkaasoo aliiman xanuun badan cadaab aliim ah oo kakan oo xanuun leh yuu ilaahay u diyaariyey subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina kubi aamanuu rumeeyayow kuwa ilaahay aaminayow udkuruu xusuusta yaa ayuha aladiina aamanuu udkuruu waxaad xustaan nicmat allaahi ilaahay nimcadiisa war nimcadii ilaahay xusuusta calaykum korkiina uu idin nimceeyey id wakti jaa'adkum ay idin timid junuud waa axsaabtii waa raggii soo bahaystay waa khadfaan iyo raggii markaa lamid ahaa fa arsalnaa waan dirnay calayhim korkooda riixan dabayl baan ku dirnay buu dhaha ilah subxaana wa tacaala iyo wa junuudan ciidan askar malaa'ig waayo lam tarow haadan arkaynin ciidan aadan arkayn ayaan dirnay buu dhahay ilaahay wa kaana allaahu ilaahayna wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad camal qabanaysaan ood samaynaysaan basiiran kii markaa arkaya subxaana wa tacaala mu'miniina ilaahi waa idiin nimceeyey rabbi nimcuu idiin siiye nimcada xusuusta yaa ayuha aladiina kubi aamanuu rumeeyayow udkuruu xusa oo waxaad xusuusataan nicmat allaahi ilaahay nimcadiisa calaykum korkiina ahaatay nimcada ilaahay ee korkiina ahaatuu rabbi idinkugu nimceeyey war xusuusta meeqa nimco alla idin siiyey war haddaad tirisaan nimcooyinka ilaahay ma koobi kartaan inta dhinac kasta laydinkaga yimid wax laydin reebtay aysan markaa jirin axbaash iyo junuud iyo ciidan iyo khadfaan iyo quraysh iyo kulla idin wada yimaadeen oo ilaahay idinkaga hiiliyey taa laftigeeda nimco weyn waayee ilaahay ku xusa subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu udkuruu nicmat allaahi xusa nimcada ilaahay oo calaykum korkiina ahaatay id wakti jaa'adkum ay idin timid junuud waa intaa isoo bahaystay fa arsalnaa waan dirnay marka calayhim korkooda riixan dabayl baan ku soo dirnay iyo wa junuudan junuud iyo ciidan waa malaa'ige lam tarawhaa aadan arkayn ciidanka ilayaa arkaaya waa malaa'ige way dhex yimaadeen inay dagaalamaan bay diyaar u yihiin saa darteed baa ilaah subxaana wa tacaala idinku ayiday junuud aan la arkayn wa kaana allaahu ilaahayna bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan basiiran kii arkaayuu ahaaday id wakti jaa'uukum ay idin yimaadeen junuuda iyo ciidanka min fawqikum xaggiina kore wa min asfala minkum iyo xaggiina hoosaba xaggiina hoosena ay markaa idinkaga yimaadeen buu ilaah leeyahay dhanka hoose ee xaggiinana ay markaa idinkaga yimaadeen xagga sare khadfaan baa ka yimid iyo wixii junuud iyo gaashaanbur ahaa xagga hoosena waa nimankii reer bani qurayda oo ayaga laftooda magaalada la deganaa nebiga ballan bay lahaayeen inaan ballanta laysaga bixin qofkoodka kale markuu la dagaalamayo ciidanka la soo dagaalam inuusan gacan soo siinin balse way ka ballan baxeen yuhuudda wax ka khiyaano badan ma jiro sidaa darteed bay ballantii uga boodeen ugana baxeen wa min asfala iyo xaggiina hoose oo minkum xaggiina ah wa min asfala minkum
dhanka hoose oo minkum xaggiina ahna ay idinkaga yimaadeen ayuu rabbi idin nimceeyee nimcada xusuusta waid waqti zaaqad ay iilatay alabsaaru indhihii ay markaa iisheen wabalagat alquluubu quluubtiina ay soo gaartay alxanaajira kalxamaha dhuunta meesha ay soo gaartay watadunnuuna oo aad malayseen billaahi ilaahay addunuuna malooyin kala duwan ayaa la maleeyey ilaahayna malooyin aad markaa malayseen hunaalika halkaa ayaa hunaalika btuliya waa la imtixaamay almu'minuuna mu'miniintii waa la imtixaamay oo meeshaabaa lagu imtixaamay wazulziluu waa la ruxruxay waa la gelgelay muslimiintii zilzaalan gilgilid iyo ruxruxitaan shadiidan ee daran buu dhaha ilah subxaana wa tacaala shadiid ahoo adag ayaa maalintaa la ruxruxay mu'miniinta imtixaan baa ku dhacay ilaah wuxuu tilmaamayaa subxaana wa tacaala sida maalintaa loogu nimceeyey iyo sida meel kasta looga soo hareereeyey muslimiinta id waqti xusa nimcada ilaah subxaana wa tacaala ama id waqti ilaahay baa waxaad samaynaysaan uu arkaya jaa'uukum ay idin yimaadeen waa junuudii waa wixii isi soo bahaystay min fawqikum xaggiina sare kor bay idinkaga yimaadeen dushiina waa reer qadfaan iyo wixii markaa xabaashtooda ahaa oo mataqaanaa la socdayba xagga sare ayay idinkaga yimaadeen xaggiina gore iyo wa min asfala dhanka hoose oo minkum xaggiina ah waid waqti zaaqat alabsaaru indhihii aragyaalkii ay iisheen waayo qofka marka cabsi daran ay ku jirto indhihiisu saani ma u taagna way iilmayaan wax badan baa iska bedelaya indhihiiniina ay iisheen waid zaaqat alabsaaru waqti aragyaalkii indhihii ay iisheen wabalagat ay gaartay alquluubu quluubtiina alxanaajira kalxamaha ay markaa soo gaareen waa meeshaa dhuunta ah waxaa la tilmaamayaa quluubtii iyo mar allaala wixii qalbiga iyo wadnihii ahaa yaa naxtin markii qofka uu aad u naxay yaa intay soo baxeena laga dhigayaa waxay dalqada iyo dhuuntii hunguriga ay markaa isugu yimaadeen waa cabsi meesha ugu xun cabsi meesha ugu daran waay ilaan dhinac kastaa waa dhibaataa lagu jiraa muslimiinta 10,000 oo ciidan oo mataqaanaa kaafiriin ah oo ku soo tala gashay in maanta la tirtiraa heegan u ah 3,000 bay gaarayaan cagacagaynayaan in ciddii gudaha kula jirtay oo aan laga cabsanayn haddii haddana ay u ballanjabiyeen dhibaataa imaanaysa muslimiintii waxaa magaalada dhexdeeda lagu dagaalamaa ciidankii la dhex deganaa ee reer qurayda ballantii way ka baxeen guryihii dumar iyo carruur baa jooga raggii dagaalkay soo aadeen idan cabsida heerka ay gaarto ilaahay cabiraya subxaana wa tacaala inay indhihii iisheen quluubtii iyo wadnihiina kalxamaha iyo halka hunguriyeerka ama dhuunta ama dalqada ay markaa isugu yimaadeen watadunnuuna waad malayseen buu yidhi ilah subxaana wa tacaala aad malayseen billaahi ilaahay addunuuna malooyin waa la kala duwanaa habkii wax loo kala maleeyey munaafiqiintii malooyin qaab daran bay alla maleeyeen subxaana wa tacaala mu'miniinta laftigooda cabsidu way ku jiraan waayo hunaalika btuliya meeshaa waa la imtixaamay buu yidhi ilah subxaana wa tacaala hunaalika halkaa ayaa la imtixaamay almu'minuuna mu'miniintii ilan waa laismiirayaa waa la is-imtixaamayaa qof kastaa qofka kale iimaankiisaa la fiirinayaa haddii cabsi ay timaadee shiddo ay timaado yaa iimaankiisii dhab ahaa yaa cararay oo baqay yaa diintii ka laabtay yaa ku sugnaaday yaa ilaahay ku darajeeyey oo ku baasay imtixaanka waa la is-imtixaamay goobta mu'miniinta wazulziluu waa la gilgilay buu dhaha ilah subxaana wa tacaala waa la ruxruxay ayagoo dhanba zilzaalan ruxitaanka in ayaga la qabtee la ruxruxay ma aha macnaha heerka ay taagan yihiin iyo sida ay ku sugan yihiin dad la dhaqdhaqaajiye la ruxruxay waa cabsida maalintaa jirta darteed zilzaalan shadiidan yuu ilaahay gelgelay subxaana wa tacaala waid yaquul xus waktimo ay yidhaahdeen almunaafiquuna munaafiqiintiina waqti ay leeyihiin ay dhaheen almunaafiquun iyo waaladiina kuwii fii quluubihim quluubtooda maradun jiradu ay ahaatay waa isla ayagee maa wacadana allaahu ilaahay nooma yaboohin iyo wa rasuuluhu rasuulkiisaba ilaa guruuran kada mooyaane waybana kediyeen ilaahay rasuulkiisa wayna dhagreenoo wayna qiyaaneen wax aanan gaari karin bay dhaheen waad gaaraysaan maxaa waaye dhibkani mashaqadan bay yidhaahdeen waa munaafiqiintii dhankaasay ayagu u baxeen meeshaasay la aadeen imtixaankii waxay u arkeenay ka dhigeen in allana qiyaanay rasuulkana uu tagay sal alla alayh wasalam
waxay arkeen in been loo sheegay oo wanaaggii iyo tamatucii ay ku jireen in la rabay in laga saaro. waid yaquulu lmunaafiquuna waqti ay dhaheen ama ay leeyihiinay yidhaahdeen munaafiqiinta iyo waaladiina fii quluubihim kuwa quluubtooda maradun jiradu ay ahaatay waa isla munaafiqiintiiye maa wacadana allahu ilaahay nooma yaboohin nooma ballan qaadin warasuuluhu rasuulkiisiina nooma yaboohin ilaa guruuran khiyaano iyo kada maahane. wayna kediyeen, wayna sireen, wayna dhagreen. waid qaalat waqti ay tiri daa'ifatun koox oo minhum ayay ka mida waa munaafiqiintiiye yaa ahla yahriba reer madiiney laa muqaama magaano nagaasho iyo maqaam lagu nagaado lakum adinka idinma sugnaanine farjicuu laabta warhoy guryihiina isaga soo noqda waqti ay dhaheen naxus oo ummadda u sheeg. waid qaala waxaad xustaa waqti ay yidhaahdeen daa'ifatun koox oo minhum ayaga ka mid ah waa munaafiqiinte yaa ahla yahriba reer yathribay waa magacyada madiina ka mid ah. saa darteed baa markii hore yathrib la ohan jiray intuusan nebiga usoo hijroonin. mar allaale markuu rasuul ku yimid magaalada ayadoo qaniin badan, ayadoo bahlo badan, ayadoo cudur badan, ayadoo wada badan, ayadoo dhibaato badan ayuu rasuulku aad u duceeyey sala allahu calayhi wasalam. weliba mar allaala markay saxaabadu ku cusbaayeen way ku xanuunsadeen. bilaal baa xanuunsaday, abubakar baa xanuunsaday. rasuulkaa loo sheegay sala allahu alayh wasalam intuu rabbi barye buu dhahay ilaahayow madiinana jeclaysii jacaylkeena maka ama midka laba jibaarsan oo kale. ilaahu suuskeeda iyo koombadeeda barakay sida maka keeda u labalaaq oo kale. duco fiican buu rasuulku ugu duceeyey ilaahu qandhadeeda iyo xanuunkeeda iyo qaniinkeedana naga rab oo juxfa markaa geey. wuxuu ku riyooday islaan qaab daran oo timaheeda raf ay yihiin oo si kasta umtaqaana dhibaato badan oo sii socoto meesha aadaysa wadihii iyo cudurkii baxay yuu ugu ta'wiiliyey sala allahu calayh wasalam. tii buu ilaahay tilmaamayaa waid qaalat waqti ay tiri ama ay yidhaahdeen daa'ifatun koox oo minhum munaafiqiintii ka mid ah yaa ahla yahriba reer yathribay war reer madiiney laa muqaama maqaam iyo meel nagu nagaado lakum adinka idinma sugnaan meesha kuma lihidiine farjicuu laabtu aqaladiina isaga noqda. wayasta'dinu idin bay qaateen fariiqun koox oo minhum ayay ka mid ahna waxay isti'daan weydiisanayaan annabiya nebiga yaquuluuna ayagoo dhahaya ina buyuutanaa guryaheena cawratun waa cawro waa faaruq. guryaheena way maran yihiin, wax ilaaliya ma joogo, haween iyo ciyaal baa jooga. rasuulkii allow na fasax oo isti'daan na sii oo waxaan kaa weydiisanaynaa inaad na fasaxdo oon guryaheena aadno waayo waa cidla. reer bani qurayda ballantii bay nooga baxeen in gudahana laka weeraran ka cabsanaynaa. guryaheenu waa faaruq, guryaheenu waa cawro, guryaheenu waa dad la'aan. ee rasuulkii allow na fasax. waid qaalat waqti daa'ifatun ay dhaheenay yidhaahdeen oo minhum munaafiqiintii ka mid ah yaa ahla yahriba reer yathribay war reer madiiney laa muqaama maqaam iyo nagaasho lakum adinka idinma sugnaanin ee farjicuu noqda laabta. farjicuu wayasta'dinu waxaa isti'daan qaadanayay fariiqun koox oo minhum ayay ka mida waa munaafiqiinta annabiya nebigay isti'daan weydiisanayeen yaquuluuna ayagoo odhanaya ina buyuutana guryaheena cawratun way maran yihiin. waa cawro waa dhar la'yiin macnaha waa cidla. wamaa hiya bicawratin cawrana ma aha. in yuriiduuna maa yuriiduuna doonina maayaan ilaa firaaran orod mahana wax kala buu dhaha ilah subxaana watacaala. waxay doonayaanay hadalkaa u dhahayaan waa inay firxadaan. orod bay ula jeedaan, cabsidaa ka keenaysa. dhaqsay rabaan inay meesha uga tagaan meesha baqdin iyo cabsi. idan inay toos u cararaan ma samayn karaane laalaab bay maraan ayay rabaan inay soo maraan. rasuulka isti'daan ay ka qaataan, ay fasax weydiistaan, ay dhahaan guryihii baa cawro ah, islaantiiyaa dhibaato haysa, ciyaalkii baa xanuunsan, xoolihii baa wax kala dhumeen, guryihii baa dhinac ka soo dumay. wax noocaasay kale cawrada ula jeedaan. eena fasax rasuulkii ilaahayow. wayasta'dinu fariiqun minhum annabiya yaquuluuna ina buyuutana guryaheena cawratun waa cawro. wamaa hiya bicawratin cawrana ma ahan. in yuriiduuna maa yuriiduuna dooni maayaan ilaa firaaran orod maahanay. reer bani qurayda intaysan ballanta ka bixin rasuulka laf ahaantiisa sala allahu calayh wasalam intuusan bixin rag buu u dhaafay. rag ayuu u dhaafay magaalada xasaan bithaabit ka mid yahay iyo mtaqaanaa rag kale sidoo kale dumarkii iyo intaasoo dhan
markii yahuuddii reer bani qurayday ballantii ka baxeen maxaa dhacday waxaa dhacday intay muslimiintu kusii maqnaayeen dhufayska iyo khandaq qoditaankiisa iyo ciidanka dhuuntiisa inay joogaan nin yahuudiba xisniga usoo koray muslimiinta damacsanaa inuu soo fiiriyo uu islahaa moxamed waxba uma dhaafin mar allaala markii uu xisnigii usoo koray oo shanqartii ay dareemeen safiya oo nebiga eedadii ahayd yaa tiri xasaano orod naga fiiri waxay yihiin xasaan wuu baqay waxoogaa intay maradeedii soo qaadatay dhexda ku xiratay iyo cumuud iyo tiir gaad ay dadku dhahaan yay soo qaadatay waa loo kaadiyey labay ahaayeen midna hoos buu joogaa midna kor buu usoo koray saa markuu madaxa usoo dhiibtay oo isdhahaa soo gal ee fiiri waxa meesha jooga yay ka horgeysay baa layidhi way ku dhufatay way ku celisay ilaa uu meeshii u dhintay mar allaala markii saa uu noqday yaa inta lasoo qabtay meydkiisii taariikhda qayb ka mida waxay tilmaantay in madaxa saa looga soo gooyey yaa lagu soo tuuray yahuudigii iyo kuwii hoos ku sugaayey dib markuu soo dhow madaxii kusoo dhacay maxay sameyen way kala carareen ayagoo dhanba horaan u ogeyn bay dheen moxamed ciidan la-aan inuusan ragga uga tegaynin haweenka iyo dumarka inuusan magaalada waardiye la-aan ka tegayn yaa wax yeelay waa dumar yaa wax sameeyey waa dumar yaa tabtaa iyo xeeladaa sameeyey waa dumar saa darteed bay dhaheen wallaahi xaraaso xoog badan baa meesha joogaa horaanba u ogeen moxamed inuu caaqil yaho uusan ciyaalkii iyo haweenkii iyo magaalada cidla uusan markaa uga tegaynin ilaahay khayr badan ha siiyo radia allahu tacaala canha dhexday xiratay keliya 2 garuun bay ku dhufatay iyo 3 iyo 4 wax lamid ah ilaa ay kow lagooga siiyey ee meydkiisii saa loogu tuuray mar allaala markuu saa uga soo dhex dhacay meeshay sugaayeen soo gala iyo saas baa jirtay soo carara yaa saaxiibkoodii meydkiisii kusoo dhex dhacay cagahay wax ka dheeray intii kale mar dambe maysan soo habaysanin mar kale ma aysan soo habaysan ciidan feejigan bay ahaayeen aad bay u baraarugsanaayeen raggooda dumarkooda ciyaalkooda jiil cajiib badan bay ahaayeen taasuu ilaahay tilmaama subxaana wa tacaala saa darteed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa dadka munaafiqiinta ah in dhibaato fara badan ay leeyihiin in cabsi iyo baqdin ay ku jirto saa darteed taasay marmarsiyo ka dhiganayaan oo ay leeyihiin dib aan u noqono eheladeena aan aadno guryaheena aan aadno guryaheena aan ilaalsano waayo waa cawro cid joogta ma leh waa faadi wax ku sugan ma leh aan baxno saasay xaaladooda ahayd waid qaalat waqti balxus ay tiri daa'ifatun koox oo minhum ayaga ka mid ah waa munaafiqiintee yaa ahla yasriba reer yasrib iyo reer madiiney laa muqaama maqaam iyo nagaasho lakum adinka idinma sugnaanin maanta waa in lagu nagaadana ma lihidiin maqaam iyo nagaashana ma lihidiin meeshaan meel la joogi kara ma aha farjicuu noqdoo laabta noqda bay yidhaahdeen laa muqaama lakum farjicuu wayasta'dinu isti'daan bay qaateen oo waxay isti'daanna cawratun cawro waaye guryaheena waa faadi bay dhaheen guryaheena waa cidlay markaa yidhaahdeen ina buyuutana cawratun wamaa hiya bicawratin cawrana maahan buu dhaha ila subxaana wa tacaala cawradu waxay ula jeedaan waa faaruq waa cidla qofna ma joogo nafasax rasuulkii ilaahayo wamaa hiya bicawratin cawra maa waa beentood waan u jeednaa sida loo difaacay waan arkaynaa waxa difaacay xataa inay haween iyo dumar yihiin waan u jeednaa sida ilaah libtii guusha u siiyey sidii iyo cararkii ay meesha ka qaadeen yuhuudii sidaa darteed buu ilaahay tilmaamayaa wamaa hiya bicawratin in yuriiduuna mana doonayaan ilaa firaaran orod maahane carar ay jihaadka iyo dagaalka iyo goobtaa ay rabaan inay markaa ka baxsadaan walow dukilat buu yidhi ila subxaana wa tacaala walow dukilat haddii la geli lahaa magaaladii madiina calayhim ay dadkii iyo munaafiqiintii oo joogta loogu imaan lahaa uma intaa kabacdina su'iluu la weydiin lahaa intaa kadibna la weydiin lahaa oo maxaa la weydiinayaa waxaa la weydiin lahaa alfitnata fitna waa kufri iyo gaalnimo fitno iyo gaafirnimo markaa la weydiin lahaa inay gaaloobaan oo la dhihi lahaa kaalaya annaga nagu soo biira oo safka gaalada soo gala oo muslimiintaan la dagaalamay annaga noo hiiliya saa haddii la samayn lahaa la aatawhaa way bixin lahaayeen buu dhaha ila subxaana wa tacaala way siin lahaayeen gaalnimadii bay bixin lahaayeen jawaabtii bay bixin lahaayeen isla markii way gaaloobi lahaayeen wamaa talabaquu manaysan ku nagaamihin bihaa kufrigaa iyo gaalnimada ilaa yasiiran ama bihaa fiiha magaalada gudaheeda ilaa yasiiran
madiina wax yar bay ku nagaan lahaayeen walaqad kaanuu waxayna ahaayeen caahadullaha kuwa ilaahay la ballamay min qablun hadda ka hor laa yuwalluuna inaysan adbaarta jeedinaynin inaysan dib jeedinaynin ayay horay ilaahay kula ballameen subxaana wa tacaala wa kaana cahdullahi ilaahay ballantiisana mas-uulan waa mid laisweydiiyo ilaahay cahdigiisii ballantiisa waa mas-uul qofka ilaahay ballan ka qaada waa la su'aalayaa cahdiga ilaahay in la oofiyo ayaa loo baahan yahay ayagu markaa maysan samaynin ilaah wuxuu cabirayaa nimankan munaafiqiinta ah cabsidana hadda ku jira inay cararaanay ordaanna doonaya haddii intay gaaladu u soo galaan korkooday magaalada ugu soo galaan oo akhtaartii jihooyinka madiino dhan looga wada yimaado intaa kabacdina gaalooba la dhaho isla markii inay bixin lahaayeen jawaab deg degahay gaaloobi lahaayeen way siin lahaayeen sidaa darteed maysan ku nagaadeen bihaa ilaa yasiiran in yar maahane wamaa talabbathuu kama aysan dibdhici lahayn oo kama nagaan lahayn bihaa kufriga iyo gaalnimada ilaa yasiiran in yar maahane durba way qaadan lahaayeen haddii la weydiiye isla markii intay uga diyaargaroobayaan keliyay sugi lahaayeen haddana way geli lahaayeen amase bihaa fiiha aad ka dhigta magaalada gudaheeda ilaa yasiiran in yar maahane walaqad kaanuu waxay ahaayeenna caahadullaha kuwa ilaahay min qablo horay kula ballamay laa yuwalluuna aladbaara inaysan cararaynin inaysan dib jeedinayn wa kaana cahdullahi ilaahay cahdigiisii ballantiisana mas-uulan mid laisweydiiyo waaye waa mas-uul oo waa laiska su'aalaya qofka inuu aad yaad u garwaaqsado ayaa markaa loo baahan yahay inuu markaa xafido uu ilaaliyo ilaahay ballantiisana waa shay markaa muhiim ah saa darteed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala khayr iyo wanaag fara badan uu siiyaa qofka ballantiisa ka soo baxa ka kalena ilaah agtiisa wanaag buu ku leeyahay markaa ma jiro wayd aqadanaa xus wakti aan qaadnay ama aan qabanay min annabiyiina nebiyaasha miihaaqahum ballantooda wa minka adigana aan kaa qaadnay nebi moxamedow wa min nuuxin iyo nuux xaggiisa wa ibraahiima nebi ibraahim wa muusaa iyo nebi muuse wa ciise bni maryama iyo ciisihii maryama canugeedii ahaa maryama ayaa dhashay ciise wa akhadanaa waan qaadnay minhum xaggooda waxaan ka qabanay miihaaqan aan ka qaadnay ballan haliidan oo markaa adag liyas'ala inuu su'aalo alsaadiqiina saadiqiinta can sidqihim runtooda dadka saadiqiinta ee runsheegayaasha ah ama nebiyaashii risaalada dadka gaarsiiyey sidqigooda in la weydiiyo intii inkirtee diiday kaafiriin noqotayna wa acadda lilkaafiriina kaafiriintana ilaahay cadaab buu u diyaariyey aliiman oo markaa xanuun badan yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaahay rumeeyayow udkuruu xusuusta nicmat allaahi ilaahay nimcadiisa oo calaykum korkiina ahaatay id waqti jaa'adkum ay idin timid junuud ay idin yimaadeen waa ciidankaa isi soo bahaystay kooxaha dhinac kasta idinkaga yimid waa axzaab fa arsalnaa waan dirnay calayhim korkooda riixan dabayl baan ku soo dirnay iyo wa junuuda ila dabaysha lafdigeedu waa ciidanka ilaahay ka mida subxaana wa tacaala wa junuudan iyo junuudkaa dambe waa malaa'ig lam tarawhaa aadan arkaynin wa kaana allahu ilaahayna wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan basiiran kii markaa arkaaya id waqti jaa'uukum ay idin yimaadeen waa axsaabtii iyo ciidankii min fawqikum korkiina ay idinkaga yimaadeen xaggiina sare iyo wa min asfala minkum dhinaca hoose ee xaggiina minkum xaggiina ahna ay idinkaga yimaadeen xagga goraqdfaan baa ka timid iyo wixii la socday xagga hoose magaalada madiina waa meeshay la deganaayeene waxaa ka yimid reer bani qurayda wayd waqti zaaqad ay qiilatay al absaaru aragyaashii wa balaqat alquluubu quluubtiina ay soo gaartay alxanaajira kalxamaha cabsi daraaddeed oo watadunnuuna aad malayseen billaahi ilaahay addunuuna malooyin hunaalika halkaa ibtiliya waa la ibtileeyo waa la imtixaamay almu'minuuna mu'miniintii hunaalika ibtuliya goobtaa waa lagu imtixaamay mu'miniinta wazulziluu waa la gelgelay buu dhahay ilaahay oo waa la ruxruxay zilzaalan ruxruxitaan shadiidan adag waid yaquulu waqti balxus yaquulu ay yidhaahdeen almunaafiquuna munaafiqiintii iyo waladiina kuwii fii quluubihim quluubtooda maradun jiradu ay ahaatay waa jiradii nifaaqnimadee maa wacadana allaahu ilaahay nooma yaboohin wa rasuuluhu iyo rasuulkiisaba ilaa guruuran khiyaano iyo kada meehee wax kale nooma ballan qaadin oo nooma yaboohin
waid waqti balxus qaalad ay tiri طaa'ifatun koox oo minhum ayay ka mida waa munaafiqiintii yaa ahla yasriba reer yasribay waa reer madiiney laa muqaama makaanu nagaasho iyo maqaam lakum adinka idinma sugnaan maanta war meeshaa maqaamku ma lihidiin meel la joogi karaa ma aha meel lagu sugnaan karaa ma aha yaa ahla yasriba laa muqaama muqaam lakum adinka idinma sugnaan oo kuma lihidin meeshaan farjicuu ee noqda guryihiina isaga noqda wayasta'dinu waxaa istiidaan qaadanaya fariiqun koox oo minhum ayay ka mid ah annabiya nebigay istiidaan weydiisanayeen wayaquuluuna ayagoo dhahayay ina buyuutana guryihiina rasuulkii allow cawratun waa faaruq waa faadiyo waa cidla waa cawra guryaheena wamaa hiya bicawrati cawrana maahan buu dhaha ilah subxaana watacaala maxay rabaan waayahe wain yuriiduuna dooni maayaan ilaa firaaran carar maahane orod ay rabaan inay ordaan maahane wax kalay ujeedadoodu tahay ma jirto walow haddii dukhilad la geli lahaa ama walow dukhilad haddii la geli lahaa madiino oo magaaladii madiine loogu soo geli lahaa calayhim korkooda ayagoo joogaa min aqtaarihaa magaalada madiina darafyaalkeeda iyo jihooyinkeeda iyo dhinacyadeeda ay uga soo geli lahaayeen gaaladii uma intaa ka bacdina su'iluu la weydiin lahaa oo la su'aalan lahaa alfitnata fidno kadibna la weydiin lahaa inay gaalnimo noqdaan la weydiin lahaa fidno iyo gaalnimo iyo arrin noocaas oo kale ah oo ay ku gaaloobayaan oo la dhihi lahaa gaalnimadan qaata way qaadan lahaayeen la aatawhaa way siin lahaayeen way bixin lahaayeen buu yidhi ila subxaana wa tacaala wamaa talabahuu mana aysan ka daahi lahayn oo kama nagaan lahayn bihaa fitnada iyo gaalnimada ilaa yasiiran in yar maahane dur bay geli lahaayeen macnaha in yar isdiyaarinayaan maahane maba daahi lahayn ee isla markii way geli lahaayeen buu leeyahy ila subxaana wa tacaala ama kumaysan nagaan lahayn bihaa fiiha magaaladii ilaa yasiiran in yar maahane walaqad kaanu waxay ahaayeen caahadu allaha kuwa ilaahay la ballamay min qablin horay intuusan dagaalkaan dhicin iyo horay ballan u qaadeen laa yuwalluuna aladbaara laa yuwalluuna inaysan jeedinaynin aladbaara dabada inaysan jeedinaynin dibka inaysan jeedinayn inaysan dhabar jeedinin macnaha inaysan cararin baa loola jeedaa wa kaana cahdullahi ilaahay cahdigiisa iyo ballantiisana mas-uulan waa mid laisweydiinayo waa mid mas-uul ahoo lasi su'aalayo lana rabo sida la rabo in markaa looga soo baxo weli dagaalkii axsaab iyo sida arrinteedu ay tahay ayaan ku jirnaa ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu mar walba jecel yahay addoonka ka soo baxa axdigii ballantii markaa uu qaaday khayr iyo wanaagna kaasaa markaa gaaraa qul lan yanfacakum alfiraaru in farartum min almawti aw alqatli wabillahi tawfiiq wallahu subxaanahu